madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa si aan hore loogu baran ugu falceliyay kaalinta dowladda federaalka Soomaaliya ee ganacsatada Muqdisho ay uga qayb qaateen dadaalka gurmadka lagu fidinayay dadkii dhibaatada ka soo gaartay gubashadii suuqa Waaheen ee magaalada Hargeysa. Muuse Bihi ayaa si wanaagsan ugu mahadceliyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble oo uu sheegay inuu soo wacay una muujiyay dareen walaalnimo isla markaana Roble uu balan qaaday inuu si degdeg ah Hargeysa ugu diri doono dhaqaalaha bankiga adduunka uu ku tabarucay balse sanad ay ku xayirneed bankiga dhexe ee Soomaaliya. Wuxuuna sidoo kale Muuse Bihi inta raaciyay in xukuumadda Soomaaliya ay ku tabarucday $1 milyan. Muuse Bihi ayaa sidoo kale u mahadceliyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee muujiyay dareenka walaalnimo taas oo uu sheegay inay ku timid wada dhalashada iyo Soomaalinimada marka ay dhibaato dhacdo. Wuxuuna guud ahaan shanta Soomaaliyeed ugu baaqay inay sidaasi si la mid ah isu gurmadaan maadaama la wada dhashay sida uu sheegay. waxayna soo hadlay xamar labada madaxda oo way ka soo hadleen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu. madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa soo wacay waa iga tacsiyeeyay waa uga mahadnaqay waxaana isku ku yiri waa maalintii Soomaalinimada iyo maalintii siyaasadda wad ku mahadsan tahay aad iyo aad waan ka mahadnaqaynaa tacsida. waxay soo wacay prime ministerkuna waa tacsiyeeyay waa uga mahadnaqay. prime ministerku wuxuu ku daray isagu waxaan haynaa lacag la idin soo diray oo banka adduunku bari hore soo diray oo sabab hawlihii inaga dhaxeeyay ay sabray wadaha halkan yaalay lacagta waxaan ku dadaalay in la soo diro maadaama dadka qabso waxaan ku waxaad ku soo dirtaa degdeg si loo soo saar karayaba iyo waqti loogu horeysan suuqa waxaan wax ka qabanayna ninka diidan inay ka murmaya waxa tiraahdaa gabigeeda waxa la gelinayaa hawsha ugu horeysa suuqa gubtay way ku dadaalay way soo direen wuxuu ugu daray annagu dawlad ahaan haddaan nahay dawladda Soomaaliya waxaan ku daraynaa $1 milyan tigidh soo dirayna waa ku mahadsan yihiin. waxaan aad ugu mahadnaqayaa ganacsatada Muqdisho ee markiiba shiray aad iyo aad baan shacabweynaha Muqdisho ugu mahadnaqayaa Soomaaliya ee degdeg ah iyo dareenka muujiyay iyo meel joogaanba Soomaaliyeed ama xisbay ha joogo ama jigjiga ha joogo ama qalaafa ha joogo ama qabr ha joogo dhagax buur ha joogo ama Jabuuti ha joogo ama Carisabe ha joogo ama Reeb ha joogo meel kasta uu joogo Boosaaso Puntland aad iyo aad baan u walaayad ka guddoon dareenka walaaltinimo ee muujiseen iyo gurmadka gasheen aad iyo aad baan ka mahadnaqaynaa waana tii la isku lahaa nin walbana maanta dadka asaasa inoo dhaxay inuu gurmano hore war soo gurman jiray. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa kaalin weyn ka qaadatay gurmashada dadkii dhibaatada ka soo gaartay suuqa Waaheen ee magaalada Hargeysa si la mid ah dowladaha Djibouti dowlad deegaanka Soomaalida iyo dowladda dariska ah ee Itoobiya. Cabdi Xaaji warbaahinta Nation Muqdisho.